madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dowladda dalka Kenya ku eedeeyay in ay faragelin qaawan ku hayso siyaasadda gudaha ee Soomaaliya. madaxweynaha wareysi gaar ah siinayay telefishinka Universal ayaa sheegay in Kenya ay doonayso in ay Soomaaliya ku yeelato saameyn dhinaca siyaasadda arrimaha gudaha ah si ayuu yiri ay noogu cadaadiso in aan gorgortan kala galno arrimaha badda. wuxuu tilmaamay in markii kala qaybsanaan iyo khilaaf laga waayay madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya ay Kenya u adeegsanayso Soomaaliya mas'uuliyiinta maamulada dalka qaarkood. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa kale uu sheegay in dowladda Soomaaliya aysan marnaba aqbali doonin damaciga Kenya ee Soomaaliya. taabadalkeeda ayuu sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay heshiis iyo cilaaqaad ku dhisan ixtiraam iyo wada shaqayn oo ay dhidibada u wada taagaan labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowr goor oo hore ka cabatay faragelin ay sheegtay in ay ku hayso dowladda dalka Kenya gaar ahaan arrimaha amniga, siyaasadda iyo xuduudaha. maamul goboleedka Jubbaland ayaa beeniyay hadalka uu warbaahinta ka sheegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweynaha ayaa dowladda Kenya ku eedeeyay in ay xiriir hoose oo ay ku fishanayso faragelin iyo dana gaar ah ay ka leedahay Soomaaliya ay kala dhaxeeyo Jubbaland. wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa sheegay in Jubbaland iyo Kenya uu ka dhaxeeyo oo kaliya heshiis ku salaysan daris wanaag iyo wada noolaansho ayna qayb ka tahay dowladaha ciidamada nabad ilaalintu ay ka joogaan Soomaaliya. waxa kale oo sheegay in Jubbaland iyo Kenya ay wadaagaan xuduud dheer ayna jiraan maslaxooyin ka dhaxeeya labada shacab, sidaas daraadeedna aan laga maarmi karin in la yeesho xiriir wanaagsan iyo wada shaqayn. wasiir ku-xigeenka ayaa meesha ka saaray in uu jiro xiriir intaas ka bedelan oo ay la leeyihiin Kenya, waxaana hadalka madaxweyne Farmaajo ku tilmaamay mid aan laga fiirsan oo colaad ka dhex abuuraya labada shacab ee Kenya iyo Soomaaliya. taliska ciidamada Afrika ee Africom ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in ay qorsheynayaan in awoodda ururka Al-Shabaab ay hoos u dhigaan dhamaadka sanadka dambe. cilmi baaris ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dhimista ama baabi'inta awood ay wax ku weerari karaan Al-Shabaab aysan ka daba mari karin bisha September ee sanadka soo socda ee 2021. sida laga soo xigtay Africom, xilligaas ayaa ah mid kama dambays ah oo macnaheedu yahay in kooxda Al-Shabaab aysan qaadi kari doonin weeraro culus oo ay ka fuliso gudaha Soomaaliya iyo waliba dalalka dariska la ah. qiimeynta ayaa waxaa kaloo lagu sheegay in bishii la soo dhaafay ay aad hoos ugu dhacday yareynta awoodda Al-Shabaab ee deegaanada ku dhow magaalada Muqdisho. Al-Shabaab ayaa wali ay awood ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolada koonfureed ee Soomaaliya, inkastoo ciidamada Mareykanku ay ilaa iyo 63 jeer ku duqeeyeen deegaanada ay ka joogaan Soomaaliya. dowladda Mareykanka ayaa u aqoonsatay Al-Shabaab in uu yahay urur khatar ku ah danaha Mareykanka ee qaaradda Afrika. bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF ayaa isku raacay in Soomaaliya laga caafiyo 5.3 milyan oo dollar oo ah deyn muddo dheer lagu lahaa. go'aanka ayaa yimid markii guddiga sare ee labada hay-adood ay falanqeeyeen kana doodeen dukumiintiyo ay ku qoran yihiin macluumaad laga aruuriyay maareynta dhaqaalaha Soomaaliya, kaasoo muujinaya in Soomaaliya ay buuxisay shuruudaha laga doonayo dowlad doonaysa in laga cafiyo deyn lacageed oo lagu lahaa. guddiga oo arrimaha deyn cafinta ka doodayay kulan u socday 12 ilaa 13 bishan ayaa waxaa kaloo lagu soo dhaweeyay dadaalka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku hagaajinayso xiriirka iyo wada shaqaynta ay la wadaagto hay'adaha deymaha lacageed ku leh. go'aanka ayaa waxaa la sheegay in la isla qaatay markii agaasinka IMF iyo madaxweynaha bangiga adduunku ay isla qireen in Soomaaliya ay ka soo baxday imtixaanaadkii la marsiiyay ee looga doonayay in ay buuxiso shuruudaha cafinta deymaha. madaxweynaha bangiga adduunka ayaa waxa uu sheegay in tallaabada la qaaday ay tahay mid horumar ah oo Soomaaliya u suuragelinaysa inay dhaqaale ka hesho hay'adaha maaliyadeed ee adduunka si ay ugu fushato ayuu yiri qorshaheeda horumarineed ee mustaqbalka. madaxweynaha bangiga adduunka ayaa Soomaaliya ugu hambalyeeyay dib u habeynta iyo hagaajinta siyaasadeeda dhaqaalaha. go'aanka deyn cafinta ayaa lagu wadaa in uu dhaqan galo bisha March ee sanadkan, maadaama ay laga maarmaan tahay in barta gaarida go'aanka kama dambayska iyo dhaqangelintiisaba loo baahan yahay in ay goobjoog yihiin dowladda Soomaaliya, saaxiibadeeda iyo dhinacyada ku leh deymaha laga cafinayo. sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay degmada Daynile ee gobolka Banaadir. sarkaalka oo lagu magacaabo Maxamed Cabdulle ayaa waxaa dilkiisa ka dambeeyay koox ku hubaysnaa bastoolado. goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in kooxda dilka geysatay ay goobta ka carartay markii ay fuliyeen falkaasi, mana jirto cid sheegatay mas'uuliyadda falkaas.
lamana xaqiijin sababta rasmiga ah ee loo dilay marxuum maxamed cabdulle oo ka mid ahaa militariga Soomaaliya. hogaamiyaha ahlusunna wal jameeca macalin maxamuud sheekh xasan ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya ururkiisu hubka qaadanayo. macalin maxamuud oo dhuusamareeb kula hadlayay taageerayaashiisa ayaa sheegay in ay muuqdaan arrimo kalifaya inay hubkooda qaataan oo ay dagaalamaan. wuxuu tilmaamay in qaraxii ka dhacay dhuusamareeb uu muujinayo in deegaanada galmudug gacanta loo geliyay al-shabaab, taasina aysan ahayn ayuu yiri mid la aqbali karo. hogaamiyaha ahlusunna ayaa xusay in hubka ay qaadanayaan uusan ahayn mid lagu waxyeeleynayo dowladda Soomaaliya, balse ay ku ilaalinayaan sharafka iyo nabadgelyada deegaanadooda. macalinku ma caddayn cidda uu ku eedeynayo in ay al-shabaab gacanta u gelisay galmudug. maamulka ahlusunna ayaa muddo dheerba siyaabo kala duwan uga soo horjeeday dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug oo ay qayb ka yihiin. ahlusunna ayaa madaxweyne u doortay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan maalmo kooban kadib markii dhuusamareeb madaxweynaha galmudug loogu doortay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in koox hubaysanay ay maanta rasaas la dhaceen taliyaha saldhigga booliska Nuur Salaad ee magaalada Boosaaso Korneyl Cumar Warsame Ciise. taliyaha ayaa la weeraray isaga oo ka soo baxay salaadii Jimcaha ee maanta, waxaana la dhaawacmay qof shacab ah oo marayay halka lagu weeraray. wararku waxay sheegayaan in Korneyl Cumar uu gaaray dhaawac culus laguna daweynayo isbitaal ku yaala magaalada. goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in kooxda falka geysatay ay goobta ka carareen inta aysan soo gaarin ciidamada amniga ee Boosaaso. welina lama sheegin qaybta dableyda iyo cida loo qabtay falkaas toona. gudoomiye ku-xigeenkii hore ee maxkamadda rafcaanka gobolka Bari Mustafa Axmed Aadan ayaa isagana 2 cisho ka hor waxaa lagu dhaawacay fal la mid ah midka maanta lagu dhaawacay Korneyl Cumar Warsame Ciise.